waxaa sharaf ii ah in aan maanta hortiina imaado oo idin kala hadlo dhowr arrimood oo aan u arko in ay muhiim yihiin. dad dheer ayaan u soo shaqaynayay ummadda Soomaaliyeed ee aynu hadlo. ayaa noqday markii ugu horeysay sarkaal ciidamada ka tirsan. haatana waxaynu ku jiraa 2008 mudada iyada anigu qaranka Soomaaliyeed baan shaqaynayay wax kala qaban mayn hawl kale lama qabsan iskay uma shaqaysan wax kale runtii kama shaqay. afartan sano waqti laga joogaa siyaasadda soo galay awal sarkaal ciidan baan ahaa ilaa waqtigaas siyaasadda ku jiray anigoo runtii ku dadaalay kulyoon ummadda Soomaaliyeed inaan u shaqeeyo oo si daacadnimo ugu shaqeeyo oo aan intaan shaqayn karo isgarab taago si dhibaatada ay ku jirto ay uga baxdo. hayeeshee waxaan anigu ku dadaalayay runtii hawshaynu ku jiray inaynu ka mira dhalanno inaynu ku guulaysano. haatanse meel baynu joogno. waxaan halgankaas ku mutaystay 12 sannadood iyo bar xabsi siyaasadeeda anigoo aan waxba geysan. waxaan ka qayb qaatay dhammaan shirarkii dib u heshiisiineed ee isdaba joogga ahaa ee Soomaaliya loo sameynayay. waxaan in badan xildhibaanadiina hortooda fadhiya kala qayb galay shirkii ugu dambeeyey oo lagu qabtay Kenya kulamada kala socday. halkaasna lagu soo dhisay dowladda federaalka ee ku meel gaarka. markaas oo aad idinku aqlabiyad buuxda igu doorateen xilka madaxweynenimada waana idinka mahadcelinayaa inaad mas-uuliyadda saadeen oo aan muddo 4 sano iyo bilaa idinla shaqaynay. waxaan ku dadaalay sidii looga mira dhalin lahaa dib u heshiisiinta TFG lagu soo dhisay. waxaan dib u heshiisiintii ka bilaabay magaalada Muqdisho dhex martay beelaha Soomaaliyeed oo dhan 2007 bishii Luulyo iyo Agost. waxaan bishii Janaayo kowdeedii 2007 dalka oo dhan ka xoraynay midowgii maxkamadaha iyo hay'adihii kale ee ladanka ah. waxaan bisha Janaayo 7keeda 2007 ugu baaqay caalamka in ay gacan ka geystaan sidii loo dhammaystiri lahaa dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed. waxaan bishii Juulaay ee 2007 magaalada ku qabtay shirkii dib u heshiisiinteed 2006 qof isugu yimaadeen aan hore u soo sheegay. waxaan bishii November 2007 anoo cuskanaya shirkii dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed ee Muqdisho ka dhacay waxaan runtii magacaabay ra'iisul wasaare iyo 9 wasiir oo aan ka tirsanayn baarlamaanka. waayo waxaan u arkay wax lagama maarmaan ah in baarlamaanka iyo shacabkuwa xukunka ka wada hayno. markii haddaba aan dareemay in dadaalkaas oo la sameeyey ay caqabado ka hor yimaadeen aniga igu muuqda inay culus yihiin oo gudaha iyo dibadba leh. markii aan arkay in axdigii lagu heshiiyey la baalmaray oo runtii aad moodo in ogaan loo yeelay. markii aan arkay in beesha caalamku taageeradii ay
أنا نوصل الغاضي مسين وسيدي لبيه ونوتر سواجب كنا إنه صدق سيكون بلنه مركي عن يغني صدي إندي بهشيسين في وأفضوي وأنا ذكر يارك توري وحش الله فلهين مركي عضاتي العيد مري بركة عنده يجبنا له وأي ترحمه قاتلين مركي أي عضاتي هذا إن وطنك بلنكيسي كوحة حبشرة أو أنت كفجان أولا كفر إن الأروج إلي وأنا يالي مروين سأنا غري خرتي وإذا كبر غالي مالك اللي دارني وعملت أفر يترون في أكتوبر لوكل يأفر وأحمال في لي داري تلك من حوين النملة وحان بدأي كور مالك صدق الرمال بين وطن تاحل كاريدي كان هيو كان كبور يسنو واجب كان يفرنو بل أنا واجب كان يفرن هي كبير يوم لا فرد ما وهو لما كنت ليه هي هذان هوس والواي حلكي تشارتين إلى يسر عليه إلا أنا مبوا من إليك أيد وفي حاكم صفري على عمل حكمنا وين مرونها كما مروا وما يالي مروين وحان انتاسل فيها الجبلي صوماليا وحصلون نظرة قال النمالي من حكماني ديري لمن النمالي وصول وطا كودا هم يسا مدام ديمقراطية ودورشوية تسلية بالخلصا هذي مغطي وحاصل بنيوين هذا السور الجلي وحان بقى صوي خلقي عبدي دورتين طبعا في أكتوبر لوقم في أقبتي إلى يسر عليه وغطي صحيحي وصلاة كبار انتهانا قلت إنه هنقضي ويا بدونيها بارلمانكا وأيو دستورهان حدير الدستور خطير ويحشمين أيو وقرية وينو هدو صوت وحي رطانه وتيسوان كتبه شيء كمية جارها وحلو ريبيا بدونيها بارلمانكا وأرين دستوريا أرين الدستور في الملك شبين هذا لما تشبين يقرأ ويحمل بدونيها بارلمانكا وهاكا قرب كي يتعلم فهو الغدر أولي ليا شيء كبير كوريشي وأنا مع السلامين يا وأنا أرد على البور في فضلة وحن شيء يا إلى مدودان ودلال في سديس كتيسان وشرهان وشغيسان سيدي الصومالي